dhammaan siyaasiyiinta madaxda xisbiga samo guddiga fulinta golaha dhexe marti sharafka ka soo qayb galay kulankan doorashada iyo dhammaan xildhibaanada xisbiga samo haweenka ururka dhalinyarada ee xisbiga samo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bacdu salaan sida lagu dhawaaqay magacayga waa maxamed aweys waxaana ka mid ahaa guddiga doorashada ee ku-meelgaarka ee doorashada xogayaha guud ee xisbiga samo. maanta waxaan u fadhinaa kulankii ama doorashada waqtiga ay tahay aan qabano. waxa uu soo maray doorashadan waxaa la magacaabay 7 bisha May 2020 ayaa guddigan la magacaabay waxaana la siiyey ama loo doortay inay hirgeliyaan doorashada ee xogayaha guud ee xisbiga samo. marxaladii ay soo martayba maanta waxaa la taagan yahay goobtii doorashada. hadduu ilaahay yiraahdo 2 musharax oo uga cadcad ee xisbiga ayaan harfadhiya oo kala ah mudane Saciid Maxamuud Cali Sateer iyo mudane Cabdiraxmaan Cali Imberwa ayaa ah musharaxiinta maanta ee u tartamaysa jagada xogayaha guud ee xisbiga samo. doorashadan markaan brief yar idinka siiyo wuxuu u dhacayaa dhowr jiho. mid wuxuu si toos ah uga dhacaya xarunta dhexe ee xisbiga samo oo si toos ah ugu codeyn doonaan. codeynta xiga waxay u dhacaysaa kuwa gurba joogaan gobolada ama maamul goboleedyada sida Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo maxaa la yiraahdaa Hirshabelle iyo gobolka Banaadir. steepka kale waxay u dhacaysaa qaaradaha Afrika, Europa, Australia, America iyo Asia ayay ka dhacaysaa. dhammaantooda waxaa wakiilo ayaa joogaan waa loo yeeri doonaa waxayna ay sheegi doonaan hadeertan qadka ayay ku jiraan waxayna ka warbixinayaa inaan meesha goobahooda ayagana ka cod bixin doonaan. marka online ahaanna waa u dhacayaa directna waa u dhacayaa doorashadan hadduu ilaahay yiraahdo. doorashada goobta markaan ka hadlayno qofka xildhibaanka ah markii loo yeero wuxuu imaanayaa halkan waxaana laga hubinayaa warqadda codbixinta iyo dhikaarka golaha dhexe ee xisbiga samo. waxaana uu qaadayaa warqadda codbixinta wuxuuna aadayaa laabkaas waxaa u yaalo miis iyo kursi asiga keligiisa waaye. warqadana waxaa ku yaala 2 musharax oo markaa la doori lahaa iyo qaabka loo dooranayo hadduu ilaah yiraahdo ama sida warqadaas meeshaas ku xusan. warqadda meeshaas ku xusan waxay tilmaamaysaa labada musharax waa kan. warqadaas waa ayagoo jarjaran waaye. markay jarjaran yihiin hadduu ilaahay yiraahdo sida ku cad waa kuwan ayagoo jarjaran. markuu warqadaas qaato mudanaha xildhibaanka ah warqadaas 2 xubnood ayaa ku kala qoran waxaana ku kala qoran magacyadooda waxaana ku yaala sawirkooda. haddaba marka qofka hadduusan qoraal aan aqoon wejigii ayuu yaqaanaa qofkuu dooranayo. marka meeshaas 2 god oo meesha ku yaalo ayuu check saarayaa asigoo aan la arkaynin cidna la joogin wuxuuna kadibna wuxuu ku laabayaa sidaas wuxuu ku ridayaa sanduuqa. kadib wixii ka dambeeya guddiga doorashada ayaa marka u yaala qaabka tirinta iyo qaabka ka soo saarideeda iyo qaabka ku dhawaaqideeda insha Allah natiijada ka soo baxda. marka taas waaye hadduu ilaahay yiraahdo inta badan ujeedka markaan ka hadlayno u guda galno doorashada waa inta
intaas la gudagaleen waxaa jiri doona labada musharax oo hadda waxaa hor yaala dukumenti oo ah waajibaadka oo markuu xilka oo ku guuleysto waxyaabaha oo ay maalintii ay halkan shirkeena ugu horeeyay ee maalintii ay lahaayeen oo la hadlaayeen musharaxiinta waxyaabaha ay balan qaadeen waa guddiga doorashooyinka minute ayay ka qoreen kadib waxaa laga soo saaray waajibaadkoodii iyo kii dastuurkii xisbiga ayaa la isku daray waxaa la soo saaray waajibaadka ee rasmiga marka uu ku guuleysto xildhibaanka mudanahaas ama musharaxaas waxaa ku hor yaala mudane waajibaadka aad gudan doontid marka xilka ku guuleysato marka labada musharax indhaha inay mariyaan inta hadeertaan aan codbixinta la galin waxaa laga rabaa musharax kasto inuu ku hor akhriyo hadeertaan xildhibaanada kadib maxaa la yiraahdaa waxaa la gudagoli doonaa doorashada laakiin marka hore waajibaadkaas kuwa idinka aad ku hadasheen oo dhammaystiran lagu daray waajibaadkii xisbiga u yaalay oo ku shaqayn jiray xogiyihii guud ee joogtada ahaa ee naga geeriyooday ayaa meesha ku jiraan oo dastuuri ah marka sidaa darteed musharax kasto waa u horyaalaa mar hore ayaan ilil keenay intii khudbadaha iyo barnaamijkan bilaabanin waxaa laga codsanayaa musharax walba indhaha mariyo khudbadaha soo socdaa waxay ku leeyihiin inay istaagaan warqadda meesha ku qoran inay akhriyaan haddii sidaas ku aqbalaan meesha ugu dambeysa waxay leedahay saxiix waa la saxiixayaa magacaaga iyo saxiixaada iyo taariikhda ku saxiixaysaa kadib marka tiimbiraha xisbiga lagu dhajinayaa galkaaga ayaa la gelinaya waa midda aad berito ku shaqayn doontid haloo idii ilaahay yiraahdo xubnaha guddiga fulinta guddiga qabanqaabada doorashooyinka ururada haweenka bahda saxaafadda dhalinyarada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warqadan dhammaanteed waxa ku qoran waan akhriyey ujeeddada ay leedahay xambaarsan tahayna waan akhriyey xaggayga aqbalay ka tahay balse wax yar ayaan idin dulmara haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka xogayaha guud ee xisbiga samo awalan koo waa in si joogto ah uu yimaado xarunta xisbiga lana socdo xaaladda guud xafiisyada ama laamaha xisbiga lana yimaado qorsho uu ku dabooli karo baahida xafiisyada iyo laamaha xisbiga waana waxyaabihii shalay aan ballan qaadnay oo aan ka shanqarinay oo haddii ilaahay ku roon yahay annaga aan ballan qaadnay annagoo musharaxiin ah insha allahu tacaala waxaan aqbalay waxa ku qaran oo dhan aan aqbalay waana saxiixaya hadduu alla yidhaahdo si waqtiga uu noogu soo yaraado insha allahu tacaala idinna sidaas ayaan idinkugu ballan qaaday doorasho wacan waxaan idinka rabaa in aan hortiina ku saxiixo haddii alla yidhaahdo musharax mudane saciid maxamuud cali sateec wuxuu saxiixayaa waajibaadkii hadduu ilaahay ku guuleeyo oo ku shaqayn lahaa insha allah sidaas ayuu kusoo koobay waxaana ka hor akhriyey baarlamaanka hortiina maanta munaasabadda loo yimid munaasabad doorasho ayaa loo yimid maxaa la dooranaa waaye waxaa la dooranayaa marxuumkii dhintay booskii uu ka tegey dadkii macnaha mathali lahaa oo shaqadaa u ku habboonaa doorashada nin kastaba wuxuu helo ayuu leeyahay saas ayaa loo abaabulay
guddigana saas ayaa macnaha aw xibnaha uu ka mid yahay in la arkaba qaybtii uu ku qoran yahay si usluub ah oo wanaag ah oo nidaam ah inuu u fuliyo ayaa looga baahan yahay maanta xogeeye guud sumaha doorashada xogeeyaha guud waxaa la rabaa si nidaamsan inay u dhacdo annagoo joogo wax dooranayna aan ku faraxno ciddii daawatana inay macnaha wax ka sheeganayo haddana iyagana ay ku farxaan dadaalka oo la dadaalay oo qoraalada iyo soo dhaweynta ah qof la arkaba qayb la siiyeyna in macnaha la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo qaybtaas nidaamkeeda qof kastaba inay markaas ay la timaad ayna fuliso munaasabadan oo maanta waa mid la sugayay macnaha la sugayay xisbiga uu sugayay oo ku holnaa macnaha munaasabada meesha xibinta in la soo buuxiyo dadkii buuxinay nidaamkoodiina oo lagu dadaalo nidaamka warqadaha iyo wararka la soo sameeyayna guddiga doorashooyinka ayaa iyo intii kaalmaysay ayaa macnaha soo abaabuleen soo toosiyeen soo qoraaleen ayaa soo mudeeyeen ayaa habka keenay dadkii habka sameeyay waxay rabaan inay sidii wax u sameeyeen inay nidaamkooda ay soo sameeyeen inay nidaamka wax u fulaan nidaamka inay wax u fulaan lagu dadaalo markaa qof kasto oo wax loo dhiibo oo hadalka lagu soo dhaweeyo mikrofoonka si nidaamkii hadalkii lagu qoray iyo meeshii ay ka hadlayso oo ay markaa qaabilsan tahay in markaas ay ku dadaasho inay macnaha ay ka hadasho waajibkeedana ay ka gudato ummadii dhageysatana ummad wax ku farxaysa inay noqdaan aad loo dadaalo kelmadaha oo macnaha la adeegsanayo si wanaagsan loo adeegsado hana laga ilaaliyo kelmad oo kelmadaas meel ka dhacay tahay ugu soo noqoto inaan dhahay kelmadaha oo macnaha la qoray ama lagu dhiibay oo inaad ka hadasho la rabo hala ilaaliyo kelmada ugu soo noqonana inay noqonin oo markaa wax lagu wada farxo ay noqdaan wax wanaagsan ay noqdaan dad oo markaas waayo arag doorashooyinka lixdameeyada ilaa hadda wixii oo la soo maray dad ka qayb gali jiray oo macnaha lagu qori jiray ama ka hadli jiray inaan wada noqono saasaa loo baahan yahay oo la yiraahdo macnaha odayaashii xisbiga aad iyo aad ayay soo awooleen ay u hadleen iyadoo oon xaraf cid ay geersineen ama si ay gaarsineen ay meel ka dhacna ay yeelan taas ayay ku habboon yihiin warniyahow ha lagu daydo dadkii maanta xisbigaas samo xisbigaas dadkoodii siday wax ay u hadleen iyo siday u soo abaabuleen iyo sida ay macnaha uga soo baxeen ujeedadii oo xisbiga oo higsanayay in la yiraahdo saas ayaan u baahannahay warkeena waa dardaar waaye waana ka bixinaa nin kastow kelmadaha macnaha jilacso meesha aad ka hadlaysana meel fiican dhigo si aman waxaa kaloo soo dhaweynayaa kasoo qaybgalayaasha shirka xildhibaanada iyo musharaxiinta oo ay soo sharaxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 7 2020 waxaan ku taagannahay inaan dooranno musharaxiintii noqon lahaa xogayaha guud xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta samu waxaan rajaynayaa inay ku dhacdo doorashada si hufan oo xor iyo xalaal ah. Cabdiqaadir Abuukar Ibraahim waxaana ay gudoomiyaha arjaqabashada ee guddiga doorashada walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin marka hore waa salaamantihiin salaan kadib doorashadan muddo badan ayaan ku soo howlaneen doorashadan waxaan ugu talagalnay in ay dadka gudaha iyo dadka dibaddaba inay u codeeyaan xogayaha guud ee xisbiga ammaanka
midnimo oleynta ummadda soomaaliyeed ee samu waxaan rabnaa annaga waxaa nagula aaminay inaan si cadaalad ah oo ilaahayna la ogyahay inaan u maamulno doorashadan ammaanadaas ayaan qaadnay ammaanadana waxay nooga eg tahay markii annaga oo aan ku wareejino xogeyaha guud doorashadii si cadaalad ay u dhacdo xilkii ayaga ayaa ninkaas ayaa la wareegi doonaa hadba labada musharax ninkii soo baxa guud ahaan xubnaha golaha dhexe ee codaynaya waa 114 xubnood oo golaha dhexe qaarkood 70 xubnood gudaha ayay joogaan qaarkoodana waxay ku soo yani codayn doonaan online qaaradda Afrika Aasiya America Australia iyo Europa waa 44 xubnood oo loo diray invitation-koodii yani soona dhigi doona oo dhaxaan u soo diiban doona guddiga doorashada ayaa yani hawshaas ku howlnaan doona laakiin kuwii gudaha ah oo noo jooga waa 70 xubnood 70 xubnood hawshooda ayaan galaynaa hadba ninkii ka soo baxa doorashada cod hal dheeri ah 3 iyo 4 hadday noqon lahayd waa la isku celin lahaa 2 qof hadday yihiin ninkii hal cod dheer ayaa xogeyaha guud noqonaya haddii ilaahay idmo marka warkii aad ayaan ugu dheeraaday wabilaahi towfiiq haddana hooshii noo dhineed ayaan gudagelaynaa أولا dadka meesha ku sheegaya xisbigu inuu macnaha asiga oo ka taacadyahay dadka musharaxiinta meesha inay cid kasta soo baxdo hal inay yihiin tabsiiriya aan marka qofkana qofkii soo baxo insha allahu taala mise daacad in loola shaqeeyo aan ahayn macnaha qaabka nooca kale inaan ahayn tabsiiriya mid kale waxaan idin sheegaa horta xisbigu waxaa xisbiga sugnaanta ammaanka iyo dimuqraadiyadda xisbi soomaaliyeed waay cidna oo macnaa muhigsinayo haddii oo qof ayaa qofkii oo shaqadiisii oo guunayo xisbigaan muhiimkuwe aad iyo aad aan soo dhaweynana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد وهرين أهنا ما دعلنا إله سبحانه وتعالى tan xigta waxaanu mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka doorashada maanta dhacaysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hortiina maalin labaad ama mar labaad oo ka muuqdo inagoo koley raadinayna danta iyo dalka dantiisa iyo dadkaba dantooda insha Allah waxaan ku rajaynayaa billahi alkariim maanta in qof waliba oo indhihiisa macallin u noqon doonaan qof walba inuu qanci doono aan ugu horeey aniga sida haddaan ka hadlo dareenkayga sida maanta qabanqaabada iyo doorashada u socoto waa qaab aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inna qiirigelisay ina dhiirigelinaysa haddii hore hal talaabo aan u qaaday maanta waxay noqon doontaa 100 talaabo inaan hore u qaado xildhibaanada sharafta leh sida hore ay soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin maantana waan rajaynayaa insha Allah anigoo koley عدينايا أما كفر أحسن شعورتي ذا ماشي قارسن تاعي إن وحاروا وحير أنت عن ورقة آخرين أمورتنا عن كو آخرين ولو أنت عن فيديو ورقة أحسن دول مراي وحين كم دهاين وحيالي دراد عن صوت شجنة سيدا مشارح يجوري بالصورة تستطيع وشيء إن وأيضا دول مري دونا لكن وحن جعلها إن هذا اللي بدأجو أنا وقتي أنا كو حسابت معايا وحير أو أنا دحجوها يا oo dhamaantina dan inoo ah oo maantana ay tahay marka maalin taariikh ah waxaan ku bilaabayaa marka maanta waa maalin taariikh ah maanta waa maalin dadka Soomaaliyeed oo meel isugu yimaaday oo muujinaya inay isjecel yihiin maanta waa maalin taariikh ah isla markaa ay joogaan laba musharax oo isjecel isu kalsoon midba midka kale jecel yahay xitaa haday dhici lahayd haddii qof uun ku soo baxo qofka kale uu taageeri doono waana dhici doontaa billahi alkariim maanta waa maalin isqadarin mudan oo qofka yar uu qadarinayo qofka weyn
qofka weyn uu qadarinayo qofka yar. Maanta waa maalin oo muujinaysa in xitaa reer la maraayo in laisku hubeeyo xilka. runtii dadka maanta halkaan isugu yimaadeen ma ahan dad kala dhaadheer. halkaan dadka maanta jooga ma ahan dad kala dheer, waa dad Soomaaliyeed, waa dad isleh isla markaana muujinaya dimuqraadiyadda, dastuurka iyo sharciga dalka waxa uu qabo inay isla markaa iyaga bilaawaan laguna daydo biilaahi alkariim. maanta waxay muujinaysaa ama tusaysaa dhalinyarta inay wax qabsan karaan, sidoo kale odayaashana waxay qaban karaan iyagoo isgarabsanayna dalkan Soomaaliya la horumarin karo. runtii professorka maanta aniga ila tartamayo waa professor aad iyo aad aan u xishmeeyo, waa professor aad iyo aad aan u jeclahay, waa professor waalidii ah, laakiin daraadaan sheegay dastuuriga iyo sharciga ayaan gudinaya aniga. sidaas lamid ah professorka haddii aan wax yar taariikh yar ka bixiyo musharaxiinta qaabka ay kala soo hormareen. professorku wuxuu xilka musharaxnimo isku soo sharxay 2 bilood ka hor. 2 bilood ka hor waa la waayay qof isku soo sharxa, waa la waayay qof isla markaa oo la tartama, inta badan way yaraayeen. saa darteed marka meesha waxaa ka muuqata professorka in aad iyo aad loo qiimeeyay, loo qadariyay. sidaas lamid ah anigana qadarinta ma aanan ka bixin oo qadarinta dhinac ayaa kaga jira, laakiin waajib dastuuri ayaan gudanayo. markaas waan ku celcelinayo professore. haddii marka warka idin soo gaabiyo, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dad waxaa jira oo ii soo bilaabay maalinta musharaxnimada soo bilaabay ilaa hadda ii guwaabinaya, ii dhiirigelinaya dal iyo dibadba. anagoo markaa rabo inaan hadalkii soo gaabiyo, guddiga doorashada waxaan ka codsanayaa inay ii fasaxaan kalimateen yar. afka qalaad dad waxaa jira oo afka qalaad igula soo hadlay, haddana waxaan rabaa afka qalaad inaan ugu jawaabo haddii ay fasaxayaan guddiga doorashada. Really, I'm dramatical, gaiety, humbly, deeply delectable desires to declare my golden chance to appear ahead of you, dear gentlemen. My laconic, lucid, creative, smart, sophisticated who are back at here. Thank you for your supporting me and giving me really your shoulder. How you are helping me, how you are supporting me as a youth. I am happy. Congratulations, congratulations, congratulations. waxaan kulay si kooban marka hadalka daan dhahay dad badan way fahmeen, laakiin haddii aan dul maro dad ma aayin waxun ma sheegin, kaliya waxaan muujiyay dadka ila soo hadlay inaan ku faraxsanahay, hambaliyada ila soo gaareenna waan ka gadoomay, sidaas la mid ah garab istaaga ay muujiyeenna waan kaga mahadceliyay dal iyo dibad. waan huwa maanta wiil dhalinyaro ahay, odayaasha indhahooda way igu dhacayaan, dhalinyarta indhahooda way igu dhacayaan. professorka kulli asiga haddii aan soo baxana waa garab taagan yahay, haddii aan soo baxana waa garab taaganahay. wax ilad ma dhicin, wiil iwaali leenahay, waxaan nahay wiil iwaali. sidaa darteeda markaa hadalka aan dhihi doono ma ammaanaan soo wadaa ama wax kale aan soo wadaa, qofna iyo ku niyajabin. waa codsi, qofna iyo niyajabinin. programka aan soo wado qofna iyo ku niyajabin. taageerayaashii hore si u taagnaayeen, professorka u taagnaayeen inay garab istaagaan, hada garab istaagaan. aniga kuwii garab taagnaayeen hay garab taagnaadaan, walow dhammaan xisbi labada yahay. manin qofkii u fikiraayo maanta inuu u imaaday in labadayna uu kala saaro oo qofkaas doorto oo kalgacayl gaara ku doorto ama kalgacayl gaara igu doorto, qofkaas uu qaldan yahay, doorashadaas alla noqdo. waxaan rabaa marka si guud aniga professorka in loo doorto si qurux badan isjecel ay leedahay. saa darteeda markaa anigoo ah musharax Cabdiraxmaan Cali Mbeewa Muuse oo isku soo sharxay xilkan xogayaha, waxaan caddaynayaa ama aan go'aansaday inaan u tanaasulo professor Satee. waa u tanaasulo professor Satee tanaasulaad. waxaan rajaynayaa professorka uga tanasulay da'weynaanteeda darteed ayuu u tanasulay.
xoogaa wuxuu isiri odaga haddii aad jirjisho waa waxbaa ku gaari doona waa ku mahadsan yahay wiilkayga waan dhali karaa idinna waad ku mahadsantihiin juhdiga faraha badan leh aad geliseen culayska faraha badan leh aad qabateen samarka badan aad u fadhiisateen insha allahu tacaala anna waxaan ballan qaadayaa hawsha aan la ii idmaday inaan si xaq ah dhab ah daacad ah u guto insha allah